ninbaa xoolo wuxuu ka lahaa 3 neef oo geel. maalmaha ka mid ah buu 3 halaad soo kaxeeyey. asagoo 3 halaad wada ayaa waxa ku soo baxay baa liiri nin. markaasuu wuxuu ku yiri halaha xageed u wadaa. markaasuu wuxuu yiri halahan waxaan rabaa inaan siisto cilmi baan rabaa biyo halaha inaan siisto yani aqoon. wuxuu yiri haddaba anaa cilmi ku baraya halaha mid isii. wuxuu yiri baa liiri haye haddaad cilmi barto waan ku siinayaa. wuxuu ku yiri weligaa buu yiri haddaad aragto meel xuska ilaahay lagu hayo ha dhaafi. haye buu yiri baa liiri. halihii buu mid siiyey. 2 halaad oo u soo harta asagoo wada baa waxa ku soo baxay baa liiri nin kale. wuxuu yiri halaha xageed u wadaa sidii ninkii horeba. markaasuu wuxuu ku yiri baa liiri halaha waxaan rabaa inaan siisto cilmi. markaasuu wuxuu ku yiri haddaba haddaan cilmi ku baro halaha mid ma isiinaysaa. haa buu yiri. wuxuu ku yiri weligaa qofku aaminay ha khiyaamin. haye buu yiri. halihii buu siiyey mid buu siiyey. isagoo hal xabba u hartay hashii keliya wata baa nin 3aad ku soo baxay. wuxuu ku yiri baa liiri hashi xageed u wadaayo. wuxuu ku yiri sidii raggii horeba hashi cilmi baan rabaa inaan siisto. wuxuu yiri haddaba haddaan cilmi ku baro hasha maad isiin. wuxuu yiri haa. wuxuu ku yiri haddii lagu yiraahdo dhulka xagee u khayr badan waxaad tiraahdaa meesha habeenkaas ilaahay kugu nabad yeelo. haye buu yiri hashii buu siiyey. ninkii waxaa lii safar buu galay. safar dheer buu iska galay. xooluhu hayeyna 3daas xigmadood ama cilmi ahaan ama cilmi ahba ama xigmadba ahba buu siistay. waxaa la yiri asagoo socda buu wuxuu ku soo baxay baa la yiri meel nin boqor degan yahay. meesha ninka boqorka degan yahay waxaa la yiri waxa ku yaala ceel. ceelkaas habeenkii waxaa la dhahaa martida ka soo caba. ceelka bahal baa ku nool dadka cuna oo bahalka dadka dila. ceelkii buu yimid. ceelkii markuu yimid habeenkii uu soo biyo doontay baa asagoo ceelkii joogaa bahal yimid. bahalkii dadka cuni jiray yimid. waxaa la yiri bahalkii baa la hadlay oo wuxuu yiri dhulka xagee ugu khayr badan. markaasuu wuxuu yiri meeshan hadda jooga. sidii buu iskaga tagaa la yiri bahalkii ilaahay waa ka badbaadiyey. subaxdii baa meeshii la soo aaday. ninkiioo nool baaba loo yimid. waa la kaxeeyo ninkii boqorka ahaa baa loo geeyey. ninkii boqorka ahaa ninkii buu su'aal weydiiyey wuxuu yiri maxaad ku badbaaday sababtu maxay tahay. qorshihii buu u sheegay sidii ku badbaaday. wuxuu ku yiri baa la yiri maanta laga bilaabo aniga ayaad ku xogeynaytaa. siduu boqorka uga tirsanaa oo ku xogeenkii boqorka u ahaa ba maalin maalmaha ka mid ah waxaa safray waa sidii nebi yuusuf boqorkii ku xogeenkiisina meeshii sadanadii buu uga tegay. intuu boqorkii maqnaa baa boqorka islaantiisiiba waxay damacday oo damca ka galay ninkii. noorada iga tag buu yiri oo kadib uu diiday. waxaa la yiri ma muddo ka bacdi baa boqorkii yimid. islaantii way fikirto waxay tiri ninkii hadduu ku diiday boqorka markuu yimaado wuu kuu sheegayaa. boqorkii baa soo noqday. ninkii boqorka ahaa markuu yimid islaantiisiiba waxay ku tiri ninkii aad sadanada kaga tagtay ee aad meesha ku aamintay anigii baa iska celin waayayoo anigiiba damac iga gala. ninkii boqorka ahaa arrintii aad buu uga xumaaday. waxaa la yiri wuxuu aaday. waxaa jira baa la yiri meel ay ugu xareysan yihiin rag calooshood u shaqaystayaala oo dadka dila. ninkii boqorka ahaa
nimankiibuu u tegey wuxuu ku yidhi subaxdii qofka ugu horreeya inii yimaada qoorta u dheereeya. ninkii boqorka ahaa habeenkii waa la iska saxday. aroortii markay tahay buu ninkii quraac intuu u dhiibay buu wuxuu ku yidhi nimanka halkaa jooga u gee quraacda. haye buu yidhi quraacdii buu soo qaaday. isagoo quraacdii wada nimankii quraacda u wada buu wuxuu ku soo baxay meel muxaadara ka socoto. muxaadaradii buu ku leexday. muxaadaradii buu dhegaystay. muxaadaradii intuu dhegaysanayey ilaa islaantu way ogeyday qorshaha meeshan ka socdaye. islaantii bay waxay tiri alla ilaahay sida ninkii loo dilayo bal ha soo aragtid. xoradii calooshood u shaqaystayaashii ku xariisnaayeen bay tagtaa leeyahay. markay tagtay ayadii baa qoorta loo dheereeyey. ninkii boqorka ahaa waqti markii sugayey islaantiisii buu waayey. meeshii buu soo aaday. markaas wuxuu u yimid islaantiiyo mayda isagiioo yaaban oo nimankii ku yiri waxa samaysaan waa maxay oo ay ku dhaheen soo adigu nalamaada ballaminoo namaada oran qofka ugu horreeyay ku yimaado qoorta u dheereeya. isagoo sidii meeshii joogoo yaaban baa waxaa yimid ninkii quraacda wada la yiri dila oo saaka aroortii la soo diray. boqorkii wuu yaabay wuxuu yiri war xageed ka timid maxaa dhacay soo saaka quraac kuma soo dhiibin. wuxuu yiri anoo soo socda baa waxaan ku soo baxay meel ugu hayo xuska ilaahay muxaadara ka socoto. meeshaas baan ku leexday. hadday noo soo dhammaatayoo haddaan iri quraacda la soo gaar. ninkii uu yaaba. ninkii buu kaxeeyey wuxuu ku yidhi intaan maqnaa adiga islaantayda maxaa idin dhex maray. wuxuu ku yidhi islaantaada intaad maqnayd way damacday anna waxaan ku idhi qof ii aaminay khiyaami maayo maanay orodoo iga tag. filan waabay ku noqotay ninkii boqorka ahaa. waxaa la yidhi ninkii boqorka ahaa sadanadii oo dhan wuxuu ku wareejiyey ninkii. sheekadan yari waxay ku tusaysaa yacni faa'iidada wax kala qaadashada ama dhegaysiga. inaad wax dhegaysato wax faa'iido waa wax aan caadi ahayn. waa wax naftaada badbaadin kara, magacaaga badbaadin kara, noloshaadana badbaadin kara. ninkaasi hantida uu hayay wuxuu ka dhaxlay oo ka helay magac, masab iyo kalsooni. halkii qof kasta jeclaan lahaa inuu gaarana wuu gaaray. wuxuuna ku gaaray cilmiguu faa'iiday, daacadnimadii, iyo sida uu u qaatay 3 kalmo ee wanaagsanayd oo ahayd dhulka meeshaad ku hoyataa ugu barako badan, xuska ilaahay meel lagu hayo ha dhaafin, iyo qofku aaminay ha khiyaami. haddaba weligaa meel kasta oo aad is leedahay cilmi baad ka faa'iidaysaa, ama qof kasta oo aad is leedahay waa qof aragti u saaxiiba, cilmi u saaxiiba, hana ka tegin, hana ka degdegin. waa mahadsantihiin.